niyaa maxaa kugu dhacay ood la murugaysan tahay ii sheeg aabihii xaaladiisa caafimaad way culus tahay intaas keliya maahane aabihii kakatiin oo isiiya ayaa aniga duurka ku soo lumiyey sidaas darteed ayuu aabihii u xanaaqsan yahay katiinada yaroo adiga kaa dhuntay sababtoo aabbaha uga xanaaqaya maxay tahay ma aqaano mar walba wuxuu dhihi jiray katiinadaani qari anaga markaan hala afduubtane ayay katiinadeeda iga luntay markii aan dhahnay katiinada ayaan raadina wuxuu idhaha meeshaas waa halis ha aadin aabbaha wuu saxan yahay meeshaas haddaad tagtana dhibaataad kala kulmaysaa meeshaas si fiican ayaan u kala aqaanaa katii kale anaa kuu keenayo aniga dartamiya waxaan oo dhan u samaynaysaa adiga dartaa hadduu aabbaha ku ogaado amuu kugu xanaaqaa ha ka walwalin katiinkaas inaan raadinaya anaga cid uma sheegaya niyaa ninkii toglas ahaa maxaa ku dhacay ii sheeg idinka ayaan idin diray ilaa iyo haddana warbixin idinkama hayo ninkaas ciidan ayaa u dirnay ciidankiina ayaa raadinayaan siduu dhaqsiyaa badanna gacanta ayay kusoo dhigayaan oo haddaba malaayacnigaas ayaad inta iila soo istaagtay oo waxaad ileedahay ciidan ayaan u dirnay war ninkaas waxaan kaaga baahnaa sida ugu dhaqsiyaa badan inaad horteeda ku keento ninkaas aniga muhiim ayuu ii yahay aniga shakhsi'aanteeda kugu raadinaya ninkaas waa inaad gacanteeda soo gelisaa haddii kale dagaal ayaa bilaabanaya yuusan ninkaas kaa baxsanin haddana dhaqaaji waaya tagfooryanis siyaan kuu dhaqmi lahaa aniga ayaa ka sahay gabadheeda ireena sidee tahay ii sheeg bal wax walbaad u baahan tahayna soo laguma siinin haa aabbo laakiin xoogaa sidee waxu jiraan wax miyaa qabyaha ii sheeg bal wax qabiya ma jiraan laakiin anigaa jeclaysta xoogaa bannaanka inaan iskaga soo lagu baxsado aabba macaan aniga baryahan caajis ayaan dareemayaa waa ku fahma gabadheedii hadda adiga bannaanka ayaad rabtaa soo maha inaad ku soo yaro lagu baxsato waxaan rabaa fardaha inaan qaato laakiin ma dheeraanayo waa soo laabanayaa intaasoo keliya waayahay gabadheedii waan ku ogolahay balse ha dheeraanin oo keliya wax walba aad jeceshahay aniga diyaar ayaan kulahay inaan kuu sameeyo gabadheedii aabba waxba ha welwelin aniga dhaqsaan soo laabanayaa wariyaa wax kasta ayaan ku soo baray xalaasha iyo xaaraantana waa aan ku soo baray sidee ku keentay inaad ribada qaadato wiil noocee ayaa taa wariyaa laakiin aamus mar dambe aniga aabbay ma dhihi kartid nima mid aa kuu sheego waxyaaba aad samaynayso waxyaabo qaldan waay xanaaqaan iyo ka tan badan midida daabkeedana iska jebin qalad ayaan galay kun jeerna waan ka shalay laakiin waxaa la yaabanaya sababtoo aabbeeyay cafillaaye sababtoo ciqaabtan ii marsiinaya ilaa had maana fahmin horta mudana adoor ciqaabtan si qaldan ku marsiinaya qaladka aa gashay ciqaabtada le waay asaarin ku cafi doona mar dhow iska dhaaf adiga markii hore qalad waan geli jiray
aabbaheena way cafin jiray balse khaladkaa markii aan galay ilaa hadda aabbahay cafis kama arkaanay waa khaladka koowaad oo aabbahay igu dharbaaxay gacantiisa markii aan rabay inaan shumeyna wuu iga diiday saaxib arrintaasa ka welwelina ku dha adiga maalmo badan waxaa sugaysa ayaa berita kuu taagan iraanna beri ayay ku imaanaysaa marka adiga waxaa lagaa rabaa farxad inaad muujiso saaxib maxaa kugu dhacay